السلام عليكم walaalahayga qaaliga ee kusoo dhawaada channelkayga with another video hadii ay igu cusubtaa walaal qaali magacaygu waa Taliso channelka iga daawaneysana waa Taliso Cabdullaahi soo dhaw oo subscribe ii saar maantana waxaan ila sheegareynaa homemade pasta ama kalaamudda aad u macaan badan oo guriga ku samaysanayso sidaan u sameeyo ila arka kana muddada aan u samaysto halkan hadda waxaan ku haystaa kiilo bur waxaan ku soo darayaa 7 xabo ukun ayaan ku soo darsanayaa sidaad arkaysaan kadibna waxaan sameyn doonaa burka iyo ukunta ayaa isku qasaya ukuntan kaliya ma qasaysa burka waxaan ku soo daraa qaybta kale oo cadeed ayaan gadaal uga soo dari doonaa soo marka ukunta laba qaybta yeelowga ayaan hadda isticmaalayo soo marka dawaakana qaybta kale ayaan ku soo daray kadibna si fiican ayaan isku dhex gelinaya soo marka uu aad kaaga adkaado oo yacni uu burkaaga wali isku ka qabsanaynin wax yar biyo ayaa ku daraysaa ana xataa biyo aad wax yar oo aad u yatayn bid ayaan ku daray waxaan ku soo darayaa cusbo oo hadda ku daray waxa kale aan ku soo darsanayaa 2 qaando oo liibe ayaan ku soo daraa biyo ay ii sheegaa waa kuwana kastaas ayaan isticmaalaya kadibna si fiican ayaan isku rifaaqa burkan waa inuu adeeg inuu ku noqdo marka hada sidaas ayuu adeeg u yahay markii aan soo qasay hada halka waxaan ku haystaa hilibkan ayaan rabaa inaan ku kariyo kalaamudada hilib geel waaye hilibka aan isticmaalayo waaweyn ayaan u soo jarjarayaa sa arkaysaan kadibna waxaan sameynayaa waxaan ku soo laabana baastada oo halkan hilibka barasho ku karayaan dibka iskala saaraya si uu u soo jilco halkan waxaan ku haystaa bacayan aan ku xiray kadibna baaquligaas ayaan ku daday halkaas ayaan ku dhaafay marka waa kana hadda waan jijarayaa soo marka waxaan ka dhigayaa 4 xabo ayaan u jijarayaa soo 4 mar ayaan kala fidinayaa soo marka way ku fududahay qafiifna uu ku noqonayaa marka aad yacni hal mar isku wada fidiso inuu ku ahaato waayo kalaamudada inaad qafiif inaad ka dhigtid waa sidaas ay ku bacaan badan tahay marka hadda waa kana aad ayuu adag burkan sa arkaysan waa inaad saas ka dhigtaa man sidaas ayaa u qastaa marka uu jilicsan yahay waa laga fiican yahay mana isqabsanayso hadhowti waana ila arki doontaan maantana waxaan tijaabi doonaa markii ugu horeysa oo ku sameeyo waayo ushaan oo ku jijarayso kalaamudada laakiin waa isla arki doonaa sida yacni u isticmaali doono ama inay ii noqon doonto ay ii shaqayso oo sida ay raba ay ii noqoto haddii ay ii noqonaysana waa arki doonaa waa markii ugu horeysa oo tijaabinayo soo marka hadda waa kana waan soo fidiyay qafiif ayaan ka soo dhigay waa arkaysan marka hadda waxaan sameynaa waa kana waan soo qaatay kadibna sidaas ayaan yacni ugu jaraaya laakiin run ahaantii way ii jari weysay because aniga burkayga aad ayuu adag yahay burka marka uu jilicsan yahay jaraysaa anigana ma doonayo inuu jilaac inuu ahaado burka ma doonaynin marka hadda waa kana waa igu daadato ii jari weysay kadib waxaan sameeyay soo marka shaab ma ahan oo ku jarayso shaab oo zaa'ida ma ahan markay jari weysa laakiin waxay iga caawisay sidaas ayaan sameeyay markii aan marsiiyay waxay ii sameysay yacni sida u kala jijari lahay kadib midida ayaan ayar u marsiiyay waa kana igama dirin ayada xataa marka hadda waa kana waa isla eg tahay ayada xataa maasha allah tabaarakallah kadibna waa kana xabada kale ayaan soo fidinayaa sidaas ayaan ku soo wadaaya laakiin burka markuu jilicsan yahay way jijaraysaa anaa idinka hubo laakiin jileec ma fiicno adeeg inuu ahaado waayo burkaada soo marka asi hataa hadduu ahaan lahay wax oo shaab hadduu ahaan lahay geedkaas wuu jari lahay laakiin shaab ma ahan soo marka waxaa u baahan tahay wax oo yacni siduu hadda u jarmayna ma kugu jarmaayo duf iyo waxba kaa yeelanaa markii uuna shaab ahayn haddii aad xoog u isticmaasho soo marka ani just sidaas ayaan sameeyay kadibna maba iga darinoo waxay ii dhaaftamo sida meesha midida marsiin lahay marka hadda waa kana walaalahayga qaaliga sidaas ayaan ku soo dhameeyay halkan miiska dushiisa ayaan soo saaray kulli markii aan soo jajaray anima sii duubayo just sideed ayaan u sameynayaa kadib halkan waxaan soo qaatay digsigan dabka soo saartay kadib waxaan ku soo shubayaa wax yar saliid kadib waxaan ku soo darsanayaa basal intaa kadib waxaan ku soo darsanayaa basasha wax yar ayaan shiilayaa waxaan ku soo darsanayaa hadda hilibka ayaan ku soo darayaa soo hilibka barasho kuka ayaan ku saaray dabka ayuu ii saaray uu soo jilcay marka walaalahayga qaaliga hadda waa kana hilibka markaan ku soo daro waxaan ku soo darsanayaa yaanyadii jag intaas kadib waxaan ku soo darsanayaa yaanyo shiishid ayaan ku soo dari doonaa
soo marka waa kana shishidaas ayaan kusoo darayaa waxaan kusoo darayaa oo kale cusbo kadibna daboolka ayaan saaraya intaas inay iskugu soo kay bislaato ayaan rabaa maasha Allah tabarakallah waana fududahay aadna waa u macaan badan tahay adigana soo tijaabiya adinkana waa ka helaysan sidaan hadaa u sameysaan daboolka ayaan iska saarayaa kadibna cabaar ayaan u sugayaa ilaa uu intaas ku soo kay dhex gasho iskaga soo bislaato marka waa kala cabaar ay soo shiilmeen maasha Allah tabarakallah kadibna waan walaaqayaa hada waxaan sameynayaa marka cabaar sidaas walaaq kadib waxaan ku soo darayaa maraq digaag ayaan ku soo darsanayaa waxaa kaloo ku soo darsanayaa kabsar caleen ayaan ku soo darayaa marka hada waa kana kabsar caleenta ayaan ku soo daray iyo tuun isku shiidan waa fridge ay igu jirtay marka waa kana hal mar ayaan isku shiidaa waxyaabaha dhan waxaan gashtaa carab kasta oo dhan isku shiidaa kadibna fridge ka iska gashtaa marka hada waa kana baradho ayaan ku soo daray waxaa intaas kadib waxaan ayaan isku walaaqay markale hadana waxaan sameynayaa waxaan ku soo darayaa biyo kulul ayaan ku soo darayaa waxaa kaloo ku dari doonaa wax yar oo maraq ayaan ku soo darayaa maraq hilibka oo markii uu ka kariyo kadib ayaan ku soo daray cabaar markii uu biyo ka kare kadibna waxaan ku daray karooto iyo waxaan ku daray bocorkaas zucchini ayaan ku soo darsaday inta kadib hadda waxaan ku dareynaa baastada ayaan ku soo dareynaa maasha Allah kala mudada waa kaas walaalahayga qaaliga sidaas markaa ugu soo daray kadib daboolkeeda ayaan u dhiibayaa waxaan ku dhawaan walaaqaya horta waa si fiican ayaan isku dhex gelinaa kadibna daboolka ayaan saarayaa maasha Allah tabarakallah aad iyo aad ay u macaan badan tahay sida u sameysataan adinkana soo tijaabiya ilana soo wadaaga sida uu kugu soo baxdo hada waa kana cabaar markay karsantay wili laakiin wili waaye ma bislo soo marka waa kana walaalahayga qaaliga kadibna dabka ayaan sidaas u kaadinaya marka waa kana walaalahayga qaaliga waxyar ayaan cabaar ayaan u sugayaa wili waqti badan ayaa u dhiman kadibna waa kana waan soo diyaariyay markii aan soo bislaatay waa kana walaalahayga qaaliga aan salaatadaas ayaan soo sameeyay basbaas cagaar caabitaan maasha Allah tabarakallah mooskeeda kama maqnay liinteedii soo dhawaada ayaan ilaahay walaalahayga qaaliga waana ku mahadsantihiin sida quruxda badan oo igu xiranteen mar walba igu soo dirtaan fariimiina quruxda badan jazaakumullahu khayran ayaan idin leeyahay videoga maanta ku cajab galay like ta naga hilmaamin ana sii share garay walaalahaga kale si uu dad badan videoga u gaaro intaan video kala ku kulmi doono waxaan rajaynayaa farxad iyo caafimaad dhamaantiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh